Urur shaqaale oo xubin laga noqdo ama hogaamiye loo noqdo ma aha shaqo labaad oo qofku shaqaaluhu galay ama helay, waa xuquuq dastuuri ah oo muwaadin kasta oo shaqaale ah uu xaq u leeyahay inuu samaysto urur shaqaale ama uu ka mid noqdo, la doorto ama wax uu doorto. Ka mid noqoshada urur shaqaale loogama fasax qaadanayo maamul, wasiir ama maareeye. Warbixintan waxaanu uga hadli doonaa ururka shaqaalaha caalamiga ah ee ILO, waqtiga la aasaasay iyo waxa uu qabto. Kusoo dhawaada Galganacsi. Ururka shaqaalaha caalamiga ah ILO waa hay'ad qaramada midoobay oo waajibaadkeedu yahay horumarinta cadaaladda bulshada iyo dhaqaalaha iyadoo loo marayo dejinta heerarka caalamiga ah ee shaqaalaha. Waxaa la aasaasay 1919 iyadoo hoos timaada ururada qaramada midoobay, waana hay'adda ugu horeysay uguna da'da weyn hay'adaha gaarka ah ee qaramada midoobay. Ururka shaqaalaha caalamiga ah ILO waxaa xubno ka ah 187 waddan. 186 ka mid ah 193 waddan ee xubnaha ka ah qaramada midoobay iyo jasiiradda Iceland. Xarunta ugu weyn waxay ku taallaa Geneva, Switzerland, iyadoo leh ku dhawaad 40 xafiis oo dacallada adduunka ah, waxayna shaqaaleysay ku dhawaad shaqaale gaaraya 3,380 oo ku kala baahsan 107 waddan, kuwaas oo 1,698 ka mid ah ay ka shaqeeyaan barnaamijyada iskaashiga farsamada iyo mashaariicda. Halbeegga shaqaalaha ee ururka shaqaalaha caalamiga ah ILO waxaa lagu leeyahay in lagu xaqiijiyo in shaqo la heli karo, taas oo leh wax soo saar iyo shaqo waarta oo adduunka oo dhan ah. Shaqo leh xorriyad, sinaan, amni iyo sharaf. Waxay ku qeexan yihiin 189 shirar iyo heshiisyo ah, kuwaas oo 8 ka mid ah loo kala saaray inay yihiin aas-aaska iyo sida ku cadda Baaqa 1998 ee mabda'a aasaasiga ah ee xuquuqda shaqaalaha, waxayna si wadajir ah u ilaalinayaan xorriyadda isu-taagga iyo aqoonsiga waxtarka leh ee xaqa gorgortanka guud, baabi'inta shaqada qasabka ah ama qasbidda shaqaalaha, ka hortagidda shaqaalaysiinta carruurta, iyo in meesha laga saaro takoorka xagga shaqada iyo shaqaalaha. Ururka shaqaalaha caalamiga ah ILO waa qayb weyn oo ka mid ah sharciga shaqaalaha caalamiga ah. Nidaamka qaramada midoobay dhexdiisa, ururka shaqaaluhu wuxuu leeyahay qaab dhismeed 3 geesood gaar ah. Dhammaan heerarka siyaasadaha iyo barnaamijyada waxay u baahan yihiin dood iyo oggolaansho wakiilada dowladaha, shaqeeyaha iyo shaqaalaha. Qaab dhismeedka waxaa lagu ilaalinayaa 3 hay'adood ee ugu waaweyn: ILO, shirka caalamiga ah ee shaqaalaha, kaas oo sanad walba la kulma si loo habeeyo heerarka caalamiga ah ee shaqaalaha; guddiga maamula oo u adeega sida golaha fulinta, go'aaminaya siyaasadda iyo miisaaniyadda wakiilada; iyo xafiisyada shaqaalaha ee caalamiga ah, xogeynta joogtada ah ee maamusha ururka iyo fulinta howlaha. Xogeynta waxaa hogaamiya agaasimaha guud Guy Ryder, kaas oo ka soo jeeda boqortooyada Ingiriiska, oo ay doorteen guddiga fulinta sanadkii 2012. 1969 ILO waxay heshay abaalmarinta Nobel Peace Prize, waxayna ku muteysatay wanaajinta walaaltinimada iyo nabadda ummadda dhexdooda, raadinta shaqo hufan iyo cadaaladda shaqaalaha, iyo siinta caawinta farsamada ee wadamada soo koraya.